السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan markale asxaabay meel kastood naga daawanaysaan. Qodobada barnaamijkan idin kugu soo gudbinayno waxa ka mid noqon doona hadalkii la sugayay inuu soo deyn doono xogayaha guud ee Xisbullah ayaa goor dhaweyd hadlay. wadaadka hogaamiya Xisbullah Naciim Qaasim oo jawaab qatara ka bixiyay heshiis la sheegay in Washington ay ku kala saxiixdeen Israa'iil iyo Lubnaan. haddaba muxuu yiri wadaadku hadalkiisu see muhiim intee leeg ayuu u lahaa maanta inuu soo hadlo wararkaas oo dhan idin haya. Israa'iil oo duqeymo cusub ku qaaday Lubnaan xilli ay heshiis xalay soo saxiixday iyo Xisbullah oo jawaab ku filan siisay iyaduna nagta ka saartay goobo ay ku sugnaayeen ciidamadeeda. tafaasiil waxa ka socda Lubnaan dagaalka Xisbullah iyo Israa'iil wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbinaya. waxaa sidoo kale qaybaha dambe aan idinkugu hayaa arrinta Iiraan iyo Mareykanka oo warar cusub uu ka soo kordhay iyo Ingiriiska iyo Faransiiska oo weli ku fakaraya inay miinooyinka ka saaraan marinbiyoodka Hormuz. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad maanta oo Khamiisa ku soo qaadanayna inta aan ku jirnana wixii akhbaara ee soo kordha waan idin la socodsiin doonaa. haddaba waxaynu ku soo qaadanaynaa akhbaaraadkii soo kordhay intaynu kala maqnayn waxaana ugu horreyn ku bilaabaynaa xaaladda Lubnaan iyo Israa'iil. haddaba waxaynu ka hadlaynay barnaamijkaygii hore ee maanta iyo maalmahanba in heshiis uu socdo Lubnaan iyo Israa'iil. Mareykanka oday ka yahay Washington lagu shiray. haddaba xalay heshiiskii waa la iswaafaq in xabadda la joojiyo 24 saac gudahood in Israa'iil iyaduna ay ka bixi doonto halkaas meelihii ay soo gashay Lubnaan koonfurta Lubnaan in dowladda Lubnaan ay ka shaqeyso in hubka iyadu gacanteeda uu ku soo aruro macnaha Xisbullah hubka laga dhigo waxyaabahaas ay ka hadleen. marka waa tii hore aan idinku sheego la lahaa maxaa macnaha heshiiskan soo kordhinaya dowladda Lubnaan meeyada dagaal ku jirta. haddaba marka warka la sugayay wuxuu ahaa jawaabta rasmiga ah ee ay ka soo saaraan Xisbullah heshiiskaas. horta waxay ku tilmaameen heshiis ku sheeg inuu yahay saasa ku wadeynaa heshiis ku sheeg uu ahaayeen wax ka jira heshiiskaas ma jireen. ninkii ugu sarreeyay marka Xisbullah Naciim Qaasim wadaad kale leeyahay ayaa soo hadlay. haddaba markaan idin tuso Al Jazeera oo soo koobtay hadalka wadaadka Naciim Qaasim xogayaha guud ee Xisbullah ayaa wuxuu yiri ilaa iyo inta tuulooyinka Lubnaan la duqeynayo oo dalkeenu la dhibaateynayo ballan ku qaadnay waqooyiga Israa'iil inaan iyaduna nabad aysan ka dhici doonin oo dadkeedu aysan nabad ku dhoolaa doonin. haddaba hadalkaas waxaa sheegay xogayaha guud ee Xisbullah sheekha la yiraahdo Naciim Qaasim. waxa uu sheegay ujeedada ugu weyn ee ah in hubka dhigista iska caabinta ay noqoto meel laga bilaabo heshiis kasta wax macna ay tahayna male baabi'inta awoodda Lubnaan. waxa uu yiri in aysan iyagu arikaa marnaba aqbali doonin in hubka dhigis lagu sameeyo. wadaadka waxa uu sidoo kale sheegay in xabad joojintu waa inay noqotaa mid dhammaystiran. ma jiri karto kala soocid u dhaxaysa koonfurta Lubnaan iyo Lubnaan inteeda kale ilaa iyo inta gardarrada ay sii socoto. waxaan la kulmi doonaa dhammaan xoogaga aanu haysano wixii awoodooda iyaguna bixin doonaan. waxaan mas'uul ka nahay ayuu yiri mas'uuliyiinteenu inay gutaan waajibaadka ah in ay wax ka qabtaan kala qaybsanaanta Lubnaan gudaheeda ka jirta balse aanay ku mashquulin inay kooxaha wax iska caabinta ay markaa yiraahdaan hubkaan ka dhigaynaa. ma aqbalayno wax xiriir ah oo ka dhaxeeya jiritaanka iska caabinta iyo joojinta gardarrada ay Israa'iil ku hayso Lubnaan. waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta inay joojiyaan majaajilada iyo ruwaayadda iyo ceebta ay markaasi la kulmayaan taasoo ah wada hadallada lagu sheegay kuwa toos ah. waxaan ka walaacsannahay ayuu yiri sheekha oo kaliya joojinta gabi ahaanba gardarrada xabad joojin iyo ka bixitaanka Israa'iil in intaas oo dhan la isku xiro. marka sheekha hadalladiisa marka waxa ugu muhiimsan wuxuu yiri horta waxa dhibaato ah
mar walba oo laga hadlayo Israa'iil ha ka baxdo dhulkeeda inay qodobka koobaad ka dhigayso hubka laga dhigo Xisbullah war adiga bax hubka dhigisti mid kale baa dhulkan maadaa iskale midda kale wuxuu yiri waxaan aad markaa uga xumahay in niman siyaasiyiinteena ay heshiis ku sheeg iska soo galaan oo waliba wixii la rabo laga sameeyo midda kale ugu muhiimsan hadalkiisa ku jirsan wuxuu yiri xabad joojin hadaa keentaan waa in waddanka dhan xabadu ka joogsataa laakiin koonfurta Lubnaan iyo Lubnaan inteeda kalma koonfurta Lubnaan ma hamiya annaga meesha aan joogno hadda joogno Lubnaan ma ahan marka xabad joojinta kaliya Beirut iyo laga ilaalina maxay marka wuxuu yiri xabad joojin Lubnaan waa in Lubnaan oo dhan noqotaa koonfur iyo beel kale loo kala saaray marka sheekhu warkiisu waa cadi nimankaas waxay leeyihiin annagu wax huba oo aan dhigayna lama arko inta Israa'iil dhulkeena ay ku jirto waa kaas sheekha hadalkiisa markuu sii dhamaanay weerar qaad Israa'iil waana xalay lagu soo heshiiyay xabad joojinta inay hirgalayso bogtay weerar ku qaaday koonfurta Lubnaan waa sheekha intuu sheegay haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Israa'iil waxay qaaday weerar cusub oo dhinaca cirka iyadoo ku beegsatay koonfurta Lubnaan wariyaha telefishinka Al Jazeera wuxuu soo sheegay in weeraradaas ay lagu qaaday magaalooyinka la yiraahdo Majd al-Zun iyo Tulin iyo Majd al-Salam iyo Baldatu Shokayn meesha la yiraahdo intaasoo magaalo ayay weerar ku qaaday sheekhi hadalkiisa dhamaaday weerar qaad aw xabad joojintii laga hadlay وبدو شيء قولها نبكر حبة توجير برهبان نبكر هول كله الصعدان ونبكر إسكان عليه وحكله يهينولي وياه مركي يجورا أنت سميين حزب الله يجورا ده شغله ده قبصت هشان نبكي حالة مركي هشيس كصوص صحيح ما هي صوص صحيحين لبنانيين تحالة هشيس كصوص صحيح ما هي صوص صحيح لبار هذا أمر كان تصور كيو قد بي حزب الله وحي شيئين إنه يقول الدقيين عيدا كقبيسها سيدا يراهدين وحيدا بلتين باميسدين وأي لدعين لبكا من تانجية إسرائيل مالكو تعالى كوفرت لبنان حزب الله وحي شيئين إنه يهبكو ذا كوب ويرارين تانجية مركافا ومركا أي نباتيين يسيدو كلا عيدا مكو هريرسنا قلعد لإرادو الشقيف تاريخيها koonfurta Lubnaan ku taala waxay dhanka kala sheegeen inay hoobiyaal la dhaceen ciidan Israa'iiliyiin oo ku sugnaa meel ku dhow qalcadaas ay qabsadeen dhawaan way marka ma u jeedaan marka meesha wax xabad joojina oo baartay lagu soo heshiiyay meesha babuuqato nimanka joogta isku hayaan way iskaraacayaan way qodobka marka halkaas kaga gudbaynaa arinta Lubnaan Xisbullah iyo Israa'iil hawshoodu halkaas ay maraysaa marka waxaan u talaabaynaa dhanka Iiraan iyo Mareykan xaalkooda halku maraa wasaaradii arrimaha dibadda ee Mareykanka maanta waxay tiri way noo bilaabato way noo socotaa warqadihii annaga iyo Iiraan aan isdhaafsanayn maalmo dhexdaas Iiraan waatay tiri waa joojin laakiin hadda Iiraan dhankeeda war kama hayno laakiin wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay leedahay warqadihii way noo socdaan wada xaajoodiyadii heshiiskiisaan u gaari lahayn wixii waana loo kala dab qaadaya macnaha dhexdhexaadiyaashu mar walba warqadeen noo soo diraan annaguna warqadaan u dirnaa haddaba marka maxay ku wada hadlaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la sheegay inay markaa sheegtay inay xiriirada Iiraan ay leeyihiin ay socdaan iyagoo dhanka dhexdhexaadiyaasha la marayo afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u sheegtay shabakada la yiraahdo Fox News Trump isagu markaa ma qaadan doono heshiis xun oo uu Iiraan la galo dhanka kalena waxay sheegeen in markaa hogaamiyaasha Iiraan ay hadda ka muuqato kala furfurnaan kadib markii sida ay sheegeen qaybtii koobaad ee saraakiisha iyo qaybtii labaadba dagaaladii hore looga dilay sida ay yiraahdeen wasaaradda arrimaha dibadda dhanka kale waxay sheegeen inay markaa socdaan wada hadaladii iyo warqadihii la isdhaafsanayay
dhanka kalena waxay ka hadleen cunaqabataynta inay Iiraan ka lumisay ay saareen malaayiin dollar oo maalin kasta Iiraan soo gali lahayd sidaas sheegan marka nimankan markuu xilliga wada hadalladii way socdaan nimanka cadaadisaan ku hayna cunaqabataynta saarnay malaayiin dollar ee maalin kasta Iiraan ku weysa waa saas marka sheekadaas ayay iyaguna wadaan warka kale oo xiisaha leh maanta wuxuu yahay oo aan la yaabay Ingiriiska iyo Faransiiska ciidan badda ah waxay ka joogaan gacanka carabta meesha la yiraahdo Bahrul Arab meesha la yiraahdo oo Hormuz u dhow mar walba ay soo hadlaan waxay yiraahdaan miinooyinka meesha ku jira qaadayna annaga kaliya maan ilaa 40 dawladood doomo ka socday maraakiib ka socota ka shaqeynayna hawshaas oo marka goormee markii la heshiiyay oo adigu hadda meeshaan maxaa u joogtaano shidaalkan iyo waqtigan kaga socda waxa ka shaqeynayna sidii miinooyinka loo bixilaa Iiraan marka ayadii ay yaabtay waxa leedahay war adika miinooyinka adika baa gashada meesha maxaase marka hore loo geliyay miinooyinkan shaqadii marka hore loo geliyay maxay macalinka weyn inuusan meesha ku soo dardarin waa geed xoog weynaa gab suulo oo soo dardara laakiin miinooyinka meesha ku cilayaan marka meeshaan dada gashaday miinooyinka shaqayna u hayaan miinooyinkan aad u baxsanaysan maxay marka dhiban oo nooc kala ah marka ninaa la wareysana wuxuu leeyahay Mareykan iyo nimankan waalkii Ingiriis iyo Faransiis meesha waxay u joogaan inay Trump uu wareersan yahay way arkeen iyaguna inay sii waalaan rabaan warnimada maxaa u imaawaysa waa joognaa meesha maxaa u shaqeyn weyseen balaankii miinooyinka looga saari lahaa meesha ka shaqeynayna asagay u sheegayaan kula waxay qabanayaan labaar marka arinta tusoo wararkii ugu dambeeyay haddaba qorshaha Britain iyo Faransiiska ayaa wuxuu yahay inay hogaamiyaan howlgallo miinooyinka looga soo saaray marinbiyoodka Hormuz warbixintan waxaa daabacay wargeyska la yiraahdo Bloomberg ee Mareykanka ka soo baxa sida uu yiri marka howlgal dawladda ka qayb galayaan miinooyinkaas lagu saaray sameynayna ilaa marka adduunkan hal isku dheela socod hal isku ciyaaro maqlishid tii socod marka Ingiriis iyo Faransiis waxay ka wadaan bakolay waxbay aabisay adikuna waxa idin la taasoo qora qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa wixii akhbaar ah soo dhacay intaynu barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaa wixii akhbaar ah soo dhacday intaynu barnaamijka ku jirnay haddaba war ayaa soo dhacay oo ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay yiraahdeen wax deganaanshiye ah kama jiri doonaan gobolka iyadoo aysan Israa'iil ka bixin Lubnaan waa war weyn macna weyn xambaars intaasay soo tuureen bas waxay yiraahdeen wax deganaanshiyaha gobolka ma ka jirayaan ilaa Israa'iil ay ka baxdo Lubnaan Israa'iil Lubnaan markay ka baxdo deganaansho ugu soo horeys inta ka horeysa jugtaas la iska gelinaa wax deganaanshaha gobolka ayaa laga suganayay marka hawshaas halkaas maray sheekada marka waa sheeko wareersan waaye xaalku marka halkaas uu joogaa wax kale oo cusub oo hadda soo kordhay oo ku saabsan dhanka mijiraan Hormuz ku saabsan oo maraakiib gudubtay iyo waxaas wax warara oo maanta aan aragnay ma jiraan haddaba wararkaas ayaynu ku soo qaadanay barnaamijkeennii labaad meel kastoo aad naga daawanaysaan inta aan mar kale kulmayno like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka nabadgelyo